أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك، بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك، وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك، وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك. لا بأس عليك ولا وجعا، أجر وطهور وشفاء، ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء. لا بأس عليك ولا وجعا، أجر وطهور وشفاء، ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال dhamaantiin galab wanaagsan jimco cudoon waxaan ku sugannahay beerta nabadda oo kamid ah meelaha ugu dalxiiska quruxda badan magaalada Muqdisho. Galabtana waxaan dhamaanteen halkan u wada joognaa bandhiga Al-Shifa Herbal oo toddobaadkiiba mar sameeyo bandhig su'aalo lagu weydiiyo dhalinyarada caasimadda magaalada Muqdisho oo su'aalaha soo diini maadi inta iskugu jiraan si ay uga faa'iideystaan dadka inta ugu badan dhalinyarada ah. Halkan waxaan ugu la sugan maamulaha xarunta iyo sidoo kale agaasimayaal kale oo xarunta qayb ka ah ayaa ugu la sugan. Galabtana in badan su'aalo waxaan ku weydiin doonaa dhalinyarada halkan u soo dalxiis tagay haba ugu badnaan lamaana kale intaba. Marka hore waxaan jeclahay in barnaamijka bandhiga aan ku soo dhaweeyo maamulaha shirkadda Al-Shifa Herbal oo ah shirkad weyn oo ku taalo bartamaha Soomaaliya iyo xarumo ka baxsanba intaba. waxyaabaha ay qabat shirkadda iyo waxyaabaha ay bixisay intaana waan la wadaagi doonaa. Marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa oo aan jecelahay inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo maamul Cabdicasiis Maxamed oo kamid ah maamulka ugu sareeya shirkadda. waxaan leeyahay galab wacan jimca kariim. maanta waxaan joognaa beerta nabadda magaalada Muqdisho. waa galab jimca ah. dadku waxaan leenahay jimca mubaarak dhamaantiin. galabta waxaanu qabanaynaa bandhigayagii wiiglaha ahaa ama aan ugu talagalay inaan dadka u soo dalxiis tagay beerta nabadda aan ku weydiino su'aalo. su'aalahaasoo ka kooban su'aalo diiniya iyo kuwa maadi ah. qofkii markaa su'aalaha ku guulaysta waxaa lagu abaalmarinayaa lacagna waa lagu abaalmarinayaa. waxaa kaloo lagu abaalmarinayaa productiga ay Al-Shifa leedahay oo ay company-gu uu sameeyo. su'aal markaa way isku dhex jiraan, qof kasta nasiibkiisu ka qaadaya. waxaan leeyahay dhalinyarta meesha joogtaa galab fiican soo dhawaada insha Allah. haddana waxaa inoo furmaya shaqadeennii ayn meesha u nimi. marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh. أجر وطهور وشفاء، ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء. لا بأس عليك ولا ويا ولي برامجka bandhiga Al-Shifa Herbal ayaa daawanaysan saaxiibayaal jimco cudoon. markaan gabar kale oo aad u daayar runtii aad u daayar markaan soo istaagtay waxaan rabnaa inaan weydiino su'aalaha balse marka hore nasiibkeeda ayaan jeclaa maadaama su'aalaha ka kooban yihiin 10 su'aal. oo soo dhaweynaa abta. bismillaah aniga magacay amrno ay lambar qabso lambarko waya lambarka koowaad ee qabsatay maadaama ay gabadhii ugu daad yareed barnaamijkeena noo bilowday. lambar 1 waxa ku xusan oo aad noo sheegaysaa caasimadda Soomaaliya. lambar 1 caasimadda Soomaaliya magaceeda laga rabaa. مقدشو وياي طبعا سيدين موقتا waxay sheegtay su'aashii koowaad barnaamijka bandhiga Al-Shifa Herbal. hadiyadeeda waxa guddoonsiin doona Cabdikariin oo noo fadhiyo dhanka hadiyad bixinta maadaama ay gabadhii ugu daad yareed barnaamijkana ka soo muuqatay. hambalyaan leeyahay nasiib wacan maadaama barnaamijka hel hadiyad ee ku guuleysatay hadiyadii koowaad. waa mahadsantahay. barnaamijka bandhiga Al-Shifa hel hadiyad maadaama barnaamijku yahay barnaamij waqti nasiib ah. bandhigana toddobaadkiiba galab walba jimca ama ugu dambeysay galabta toddobaadkiiba ugu dambeeyso bandhiga Al-Shifa ay ku weydiiyaan dadka su'aalo diin iyo maadi iskugu jira. hadda waxa baxday su'aashii koowaad waxaan rajaynaynaa in saaxiibo kale nagala soo qayb gali doonaan
sidoo kalena qayb ay ka noqon doonaan barnaamijkan. أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا. ويا داوديال ولي برنامجka waxaad daawanaysaan bandhiga Al-Shifa hel hadiyad ayaa barnaamijka ugu magac darnay waa barnaamij waqti nasiib ah oo qof walba ku heli karo nasiibkiisa maadaama nasiibku uu yahay in hadiyada qaali ay ku xusan yihiin nasiibkaada markaan gabar kale aan jeclahay inaan soo dhaweeyo su'aalahaas waxay qayb ka yihiin 10 su'aal su'aashii koowaad baxda waxaa noo hartay 9 marka hore ku soo dhaweynaya jimca wanaagsan soo dhaw jimca la mid ah ay magacaada adoo noogu bilaabay magacaygu Sumaya Daarishaan waya 10 su'aal ay ahaayeen hal su'aal ka baxday 9 su'aal soo hartay nasiibkaada ku tijaabi mid kamid ah lambarada waxay ka bilaabaan 2 ilaa 9 7 waya lambarka 7 ayay qabsatay lambarka 7 waxaa ku xusan su'aal diini ah waxaad sheegtaa 5 suuradood oo Quraan Kariimka ugu soo hordegatay kaliya waxaad ka sheegtaa 3 suuradood سلام عليكم سورة الإقراء سورة قريش سورة الحج وما سنتهي نصيب عنا كلها ما دام عبرت كل فتي ولو أتكسب فائدة كرتان 8 سؤالات أيها هل كان كوي ديننا برامج كبندقة الشفاء والدواء نسان هدية قال يكون حسن العق يصير كله لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء. وهي أقصد بينا مركور مجا عضلك بلاوي. عبد العزيز حسن. عبد العزيز برامج كبندقة وبرامج تطبيقات كي شركة دان يكون دي صدقني رد مقالة مقدش سؤاله وحنرجينا إن نصيب كذا هل كان كنت جايبين دونتو طبعا سؤاله ده هين وح كبحضي هل سؤال سجال سؤال صارتي لمبر قبصرت نمبرك حوالي نمبر كبر كده ودي كده ما يسويش كويس انت نمبرك حوالي إلا سجال إلا كو إلا لب سجال إلا لو نمبرك شنات ويا لمبر كشنات سؤال هذا واحد شيء جيسا قبل كأوين صوماليا قبل كأوين صوماليا حوالي مقدشو ويا نصيب معنا كلها ما نقرن ويا هي وما تنتع كلها هي صاحبك على عدن رجينا عيون نصيب كده كنت جابيان ما دام ولي سجال كي سؤالات برامج كبندقة هل هدية نصيب كذا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء. كانوا حالات كسر دوينيا عدبهيا الشفاء dad ka mid ah dhalinyarada caasimadda magaalada Muqdisho ee baahiyaha gaarka qaba ee uu soo dhaweynaya walaal oo dhawa walaal anigoo dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba kamid aad baa ugu faraxsanahay barnaamijkan aan kala soo qayb galo way magacaada noogu bilaw Axmed Cabdulla Xasan way Axmed su'aalo aan barnaamijka dhalinyarada la dhax qaadinay oo Al-Shifa herbal bandhigiisa ay ugu talagashay in nasiibkiisa qof kastoo bini'aadan ku tijaabiyo su'aalahan waxay nooga bilaabanayaan lambarka 2 ilaa lambarka 9 nasiibkaada ku tijaabi mid kamid ah okay lambar 4 qabsanaya waya lambar 4 su'aalo ayaa ku xusan waxaad sheegtaa gobolka ugu yar dalka Soomaaliya gobolka ugu yar wadanka Soomaaliya waa gobolkan Banaadir waya ambali aan leeyahay magacaadi wicil Axmed Cabdulla Xasan Axmed Cabdulla wuxuu ka faa'iideystay su'aashii afraad oo ahayd gobolka ugu yar dalka Soomaaliya waana gobolka Banaadir ambali aan ku leeyahay hadiyad maxaan rajeynaysaa wixii nasiibkayga noqdo waya shirkadda Al-Shifa Herbal macallada waxaan leeyahay jiro jooga waya aad u maadsantaa ku leeyahay nasiib wacan saaxiib maadaama hadiyadiisa hadda uu guddoonsiinayo Cabdikariin waxaan rajeynayaa inaad ka guddoomi doonto waya ambali aan ku leeyahay أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا. يركل dhalinyarada kamid ah markaan soo dhaweynaa soo dhawalan دو عدد بمسنتين ay magacaada noogu bilaw magacaygu waa Saciid Saciid su'aalo ayaan weydiinaynaa dhalinyarada qaasatan dhalinta u soo dalxiis tagtay goobtan quruxda badan ee beerta nabadda waxaan weydiinay 10 su'aal waxa ka baxday 2 su'aal 8 su'aal soo hartay lambar waxay ka bilaabanayaan su'aalaha lambar
labo ilaa lambarka sagaalaad mid baan qabsadaa soo maa waxaa qabsaday lambar 7 lambarka nasiibkayga 7 markale ku celi 7 lambarka soo baxa lambarkaas waa baxay soo maa waxaa qabsaday lambar 3 waya lambar 3 waxaa ku xusan ninkii hindisay calanka Soomaaliya ayaa laga rabaa shaqsigii ugu horeeyay ee hindisay calanka Soomaaliya wallaahi niyo waa qojiri laakiin hadda maanta ma hayniyo waa mahadsantahay nasiib waxaan ku leeyahay aad u mahadsantahay لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء magacaada adoo noogu bilaabay وعبدالسلام أحمد معلم waa Cabdisalaan su'aalaha iyo barnaamijka bandhiga Al-Shifa ay weydiinaysa dhalinyarada lambarada waxay ka bilaabanayaan lambarka 2 ilaa lambarka 9 lambarka qabsata su'aalaha ku xusan lambar qabsan لمبرك السدحات taas waa baxay lambar kale لمبرك لبات waya lambarka 2 waxaad sheegtaa 5 suuradood oo Quraan Kariimka ugu soo hordegatay waxaad ka sheegtaa 3 kamid البقرة العمرة iyo البقرة العمرة iyo مائدة waya waa mahadsantahay maalin haleelin nasiib waxaan ku leeyahay wali su'aalaha ayaa noo sii furan barnaamijka bandhiga Al-Shifa Herbal ayaad naga daawanaysaan dhanka kaamirada Mustafa ayaan kaga mahad celinaya أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا wiil kale markaan soo dhaweynaa soo dhaw walaal أدوى صاحب magacaada adoo noogu bilaabay هي عبد القادر عبد الله علي ay Cabdiqaadir lambar qabso lambar 2 ilaa lambarka 9 نمبر لح waya lambar 6 su'aal waxaa ku xusan waxaad sheegtaa calanka Soomaaliya meeshii ugu horeysay oo laga taagay عنك الصومالي ماشي أقول رئيسه اللي قتاقي دلكنا صوماليا dhankee دلكنا صوماليا دلكي ما يدهد دلكنا صوماليا gobolka Gedo waya waa mahadsantahay walaal maadan haleelin nasiib waxaan ku leeyahay saaxiibada kale wali barnaamijka uu sii furan yahay أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا waya wiil kale soo dhaweynaya soo dhaw walaal waa dhawahay walaal magacaygu waa Cabbaas Ibrahim Aamin Cabbaas Xaliye aad ugu dhaw barnaamijka Cabbaas ku soo dhaweynaya lambarada waxaad qabsataa lambar 2 ilaa lambarka 9 mid kamid lambar 6 qabsanaya waya lambar 6 waxaa ku xusan meeshii ugu horeysay ee laga taagay calanka Soomaaliya magaalada Hargeysa wali magaalada Hargeysa wayahay wuxuu sheegay su'aasha saxda ah magaalada Hargeysa hambalyan leeyahay nasiib wacan maxaad rajeynaysaa hadiyad كل waxay ugu talgashaa arjaanaya insha Allah waa shirkadda Al-Shifa macalada jiro joog leeyahay waxay galin wanaagsan ee wada waa soo dhaweynaya meel walba ay joogto wax la jirto waa hadiyadaada ka guddoon أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا waya walaal ku soo dhaweynaya markooda wadhabahay walaal magacaygu waa Deeq Ibraahim Xuseen waya deeq waxaan ku weydiinaynaa su'aalo aan dhalinyarada la dhex qaadayna codbaahiyaha Al-Shifa Herbal oo toddobaadkiiba mar goobaha dalxiiska aan ugu talagalnay diyaar oo taan rajeynaa diyaar aan wahay waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysto insha Allah waya lambarada 10 lambar ay ahaayeen qayb kamid ah baxday lambar qabso lambar 6 waa baxay lambar kale lambar 9 waya lambarka 9aad ayaad qabsatay oo kamid ah lambarada waxaad sheegtaa Soomaaliya waxa xoreeyay 13 dhalinyaro waxaad ka sheegtaa 3 kamid ah Cabdiqaadir Saqaawdiin Yaasiin Xaaji Cusmaan Cabdiqaadir Saqaawdiin Yaasiin Xaaji Cusmaan
دكتور صلاح الدين ياسين حاج عثمان جيد راقي عثمان جيد راقي waayahay ambal aan leeyahay su'aashii sagaalaad sidii la yaqaanay ayuu shirkadda maxaa leedahay Al-Shifa waxaan leeyahay barnaamijkan aawadaan in aad ay bulshada ugu baahan tahay dhiirigelinna way u noqonaysaa shirkadana in kobac iyo dhiirigelin dadka ay siinayso ka mid tahay midaas nasiib wacan hadiyadaada waxa ku guddoonsiinaya Cabdikariin sida idin muuqataba waxay gudoontay hadiyadii waayahay ambal aan ku leeyahay ajrun wa tahurun wa shifaa'un ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا waayahay waxaan rajeynayaa dadka baahiyaha gaarka qaba inuu qayb ka yahay walaal ku soo dhaweynayaa barnaamijka bandhiga Al-Shifa waa maasanta brado ku dhawahay waayahay magacaada noogu bilaabay waliid maxamed cali waa saaxib waayahay waliid su'aalo ayaa halkan ku xusan su'aashiba 10 su'aalood qaybna way baxday su'aal walba waxa ku xusan su'aalo lambar qabso 9 ilaa 2 9 ilaa 2 9 qabsaday lambarkaas waa baxay lambar kale 3 wali 4 wali 7 wali waa baxay 2 waya lambarka labaad aad qabsatay waxaad sheegtaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xaaskii ugu dambeeyay oo guursaday haddii aan isku dayo waa ramla nasiib waxaan ku leeyahay wali maadan haleelin waayahay waa maadsantaa ku leeyahay ajrun wa tahurun wa shifaa'un ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا ugu dambeeyay ayaa markaan isla soo gaarnay ama gabagabada su'aalo yar ayaa noo haray markaansa waxaan soo dhaweeyaa mid kamid ah dhalinyarada maadaama aan mikrofoonka la dhax qaadayna barnaamijka Al-Shifa oo hel hadiyad soo dhawalan walaal magacaada Mustafa kamerada eegay Mustafa Mustafa su'aalo ayaa halkan noogu xusan 10 su'aalood su'aal kastana waxa ku xusan hadiyad waxaad qabsataa 2 ilaa lambarka 9 2 number 2 waya lambar 2 waxaad sheegtaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xaaskiisii ugu dambeeyay oo guursaday عايشة عايشة ويا ما هليلين نصيب وعنان كلها ولا ما تنتهي أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا وياhay wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka bandhiga Al-Shifa su'aalaha 10 su'aalood aan ugu talagalnay dhalinyarada magaalada Muqdisho qaasatan dhalinta halkan u soo dalxiis tagtay beerta nabadda walaal waxa hartay 5 su'aal oo su'aalaha dhalinyarada aan weydiinay lambarada harana waxay ka bilaabanayaan lambarka 10aad 3aad 4aad 8aad ilaa lambarka 2aad number 10 lambarka 10aad waxaad sheegtaa lambarka 10aad 5 suurad oo Quraan Kariimka ugu soo hordegatay 3 kamid ka sheeg waxa soo degatay iqra soo degatay waxa ku xigtay ayatul kursi ku xigtay waxa ku xigtay قل والله ما أنا هليلين نصيب وعنان كلها هاي أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا وحكوسو دواتها برامجك بندقة Al-Shifa والله أنا مقيعي إلياس عمر داود Al-Shifa عن ليهاي ما أنت معناه بيرت نودها جوجنا فانت marka shacbiyana ani salaamay way waa maadsantahay su'aalan ku weydiinayna 5 su'aal aan noo hartay waxaad 5 su'aalood waxay kaliin lambar 2 10 3 4 lambaradaas mid kamid qabso lambar 2 ku heestaas labada waxaad sheegtaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xaaskii ugu dambeeyay oo guursaday wallahi su'aashaas isku dayo xaaska nabiga oo guursaday اللهم صل على سيدنا محمد وحواي حاسك ugu dambeeyo Madiina حاسك ugu dambeeyo Saadiyo waa maadsantaa nasiib wacan maadan haleelin nasiib wacan ku rujina wala أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
لا بأس عليك ولا waxaa mar kale su'aalaha weli sii weydiinaynaa maadaama shan su'aal oo ka mid ah ay noo hareen barnaamijka bandhigga su'aalaha shakhsi kale oo baahiyaha gaarka qaba walaal ku soo dhaweynaya ku dhawaad magacaygu waa cabdirasaaq axmed cumar ay cabdirasaaq su'aalaha nasiibkaada diyaar u tarjina okay waa waxa ugu mid inaan nasiibkayga tijaabiyo way cabdirasaaq waxaa noo haray lambar 2 10 8 4 iyo waxaa noo haray lambarka 3 lambarka afraad qabsana lambarka afraad way lambarka afraad waxaad sheegtaa shanta noole aysan cidna dhalin oo aabbi iyo hooyo aan lahayn shanta noole oo aabbi iyo hooyo aan lahayn oo aabbi noole hooyo lahayn waxaa ka mid ah ما قال وما تنتهي نصيب وعنان كلها ولاد أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا لمبرد waxaa qabsanaysaa 10 2 8 intaas lambar 10 lambarka 10 waxaa sheegtaa sanadkii ay qaato Soomaaliya xorriyadda sanadkii 1960 su'aashaas ambaliya ku leeyahay waad ka jawaabtay waxaan rajeynayaa hadiyadaada inuu ku guddoonsiin doono maamulka أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا سودو جبجبة تاجنا سدح سؤالود أنا هرتي أديكم مركور مجا أنا وبلان علي محمد علي وما تصنتها أكسود وينيا لمبرك سديدات لبعض يا أفراد متقبصر لبعض لمبرك لبعض ويحتاج شيء سعيبي كحشوت ملايكت علي بن دال علي بن أبي طالب ما تصنتها ماذا ليلين نصيب عنا كلها هاي أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا ولي سؤال سدح سؤال وكمل يا نورتي ويا أكسود وين ولا ودو ولا محمد الله محمد سدح سؤال أنا نورتي ولمبرك سديدات لبعض أفراد 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 شيخ هالك أكو أسنيه النبي إسماعيل مقرنا وراد مقرنا نصيب عنا كل أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا محمد مزينة محمد أي محمد لمبر لبا سيديد أفر لمبر قصة أفر ويا لمبر كأفراد يا قصتي وحاكو حسن شيخ هلك وكأسنيه النبي إسماعيل مكة المكرمة مكة المكرمة ويا حنبليا يعني كلها محمد وعقب صديق سواشي شيخ النبي إسماعيل ماشي وكأسنيه وأنا مكة المكرمة حنبليا يعني كلها حنبليا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا ويا أكسود بينا ولا هذا معلم ويعيق أحمد داود معلم يا أحمد سيارتين برامج كان سؤالا كوي دينو وحارتي لبس سؤال وكلية وأنا لمبر كلابات لمبر السديدات لمبر السديدات شيخ نبي أنت وبدن قرآن كريم كله وحس عفوا نبي موسى نبي موسى ويهي ماذا هليلين نصيب وعنا كلها هاي أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا كسو دوا برامج دوا ما شاء الله magacayga maxaa lahaa maxamed mukhtaar barnaamijka adoo kaamirada fiirinaya barnaamijka bandhigga al-shifa laba su'aal aan noo hartay waana 8 iyo 2 mid qabsan waxaan qabsan lahaa anigu nasiibkeyga ayaan badaweynayaa waxaan leeyahay 2 sheeg saxaabiga ee malaa'igta ka xishood عثمان بن عفان عثمان بن عفان وياهي عثمان بن عفان saxaabiga malaa'igta ka xishood hanbali ayaan ku leeyahay su'aashii labada su'aal oo noogu dambeysay mid kamid ah waxaana ku xusan hadiyad ee bixisa shirkadda al-shifa waxa ku guddoonsiin doona Cabdikariin oo kamid ah maamulka hanbali nasiib wacan أجر وطهور وشفاء
ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا kamid yahay runtii dadka wuxuu kamid yahay baahiyaha gaarka qaba oo araggala ku soo dhaweynaya maadaama barnaamijka bandhiga Al-Shifa galabta inta ugu badan ee dhalinyaro aragga naafaka ay qayb weyn ka qaadanayeen sharafeena noo tahay in dhalinyarada sidoo badan ayagoo isku dhex jiro inta badan ee barnaamijka qaata oo ku soo dhaweynaa walaal waa maasantaa waan ku dhawaa aad ogeyn hal su'aal aan noo hartay waana su'aasha 8aad ee waxaad sheegtaa nabigii quraanka inta ugu badan lagu sheegay nabigaas waa nabi Ilyas نبي إلياس وياي وما تصنتها ما نهليلين نصيب وعنا كله ياي أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا اوكي ويا سوده ولا انت فيرنا كاميرا دوا ولا magacaada nagu bilaw deeqote ay deeq lambarka 8aad su'aasha ugu dambayso waxaad sheegtaa nabigii inta ugu badan quraanka lagu sheegay waa nabi ibraahim wayahay asiga ayaa ka jawaab waana nabi ibraahim hambali ayaan ku leeyahay nasiib wacan waxa ku guuleysatay mid kamid ah hadiyadaha ugu dambeeyay oo lacag sidee u aragtaa inaan noqoto qofkii ugu dambeeyay barnaamijka hadiyadii ugu dambeeyay guuleysatay anigoo deeqoota waa ku faraxsanahay hadiyadii ugu dambeysay ku guuleysatay magacaada deeqoota waa hadiyada ku wadato yes wayahay hambali aan ku leeyahay dikrina guddoonsiinay أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا way hadaa wadayaal guudaan waxaan jecelnahay barnaamijka bandhiga ee Al-Shifa inaan intaas ku soo gabagabeeyno waa barnaamij toddobaadkiiba galab kamid ah galbaha toddobaadka galabta ugu dambeysay jimcaha aan mikrofoonka la dhax qaadno oo dhalinyarada ku weydiino su'aalo hadiyada ay ku kala gudoomayaan isla markaana aqoontooda iyo garaadkooda ay wax badan kaga faa'iidi doonaan su'aalahaas inta badan hadiyada waxaa bixisa shirkadan Al-Shifa oo ku taala Muqdisho Nairobi Hargeysa iyo Mareykanka anigu waxaan saacid karaama saaxiibada barnaamijka wada jir aan iskula wadnay Mustafa oo dhanka kaamirada iyo maamulaha Cabdicasiis Maxamed iyo guud ahaan asxaabtii ka qayb qaadatay ayaan leeyahay nasiib wacan intaas ayaan jeclaynaa ku soo gabagabeeyo nabadgelyo أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا